علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته walaalayaal meel walbo aad daafaha dunida naga daawanaysa waxaad nagala socotaan barnaamijkii aynu ugu talagalnay bisha ramadaan ee aan la noolayn axaadiistii nabigeena maxamed ah oo aan ku maaratay isdul istaajinaynay axaadiistii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ee loogu talagalay aan ugu talagalnay bisha ramadaan inuu qofka muslimka ah ka faa'iidaysto xadiidkeena maanta can jaabir ibn cabdillah radiyallahu anhu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم فضلك صلاة وترك جابر بن عبد الله إله يكرر للنغضة waxaa laga wariyey inuu rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam yidhi ruuxii ka baqaa inuu soo kici waayo habeenka aakhirkiisa qaybta dambe ha tukado witri habeenka qaybtiisa hore ruuxii damacsan inuu soo tooso oo istaago habeenka qaybtiisa dambe witri ha tukado qaybta dambe salaada habeenka qaybtiisa dambe la tukado miday malaa'igtu marqaati kacaysa weeye midaas ayaana fadli badan waxaa wariyey muslim haddii aan walaalayaal sida caadaynoo ahaydan xadiiska isdul istaajino oo aan xaraf iyo maarata macnaha aan dul istaagno jaabir ibni cabdillaahi ilaaha ka raali noqdee qaala waxa uu yidhi jaabir ibni cabdillaahi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man ruuxii khaafa ka baqaa anlaa yaquuma min aakhiri alleyli inuu soo kici waayo habeenka aakhirkiisa qaybta dambe falyuutir awalahu habeenka qaybta hore iska tukado hadduu ka baqo istiraada leeyahay ma soo kici karto hurdo amay kula tagtaa oo dareen noocaasa ku dhasho asagana uu istiraad alla ilaahay haddii aad saaxatid hurdana ay kula tagto ood soo kici weydo oo cabsi noocaasa hadday ku gasho qofkaas waxa uu samayn karaa inuu maaragtay iska tukado habeenka qaybta hore weeyaan habeenka qaybta hore falyutir awalahu habeenka qaybta hore iska tukado ayuu leeyahay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam laanna qofkan wanaaggan iyo xasanaadkan ayuu niyeystay niyadiisaas wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku raaligelinaya xataa hadday hurdada la tagto sida xadiista kale ay tilmaamayaan waa loo qoraa weeyaan waman ruuxii damaca damciyaay an yaquuma inuu soo kaco aakhirahu habeenka qaybta dambe oo awoodiya kalaan u laho isla alla ilaahay waad soo kaci karaysaay oo sidaasi ku seexdo haddana rab inuu soo kaco falyuutir ha witriyo witrka ha tukado aakhira alleyli habeenka qaybta dambe wey habeenka aakhirkiisa ha iska tukado weliba asagaa ka fadli badan kan horay fa inna salaata aakhiri alleyli salaada habeenka qaybaha dambe dadka markay jiifaan qofka uu soo kaco oo guriga laga jiifo oo ciddii o dhan ay jiifaan oo magaalada laga jiifo ilaahay dartiia u soo kacdo hurdadii macaanada ka soo kacdid hee mashhuudatun waa miday markhaati ka tahay malaa'igta ilaahi tabaaraka wa tacaala wadaalika afdalu taasaana fadli badan wey qaybta dambe habeenka 3 meelood markii meel sha ugu dambayso oo thuluth al-akhiir min al-layli inuu qofka soo kaco oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo khawfan wa tamacan cabsi iyo rajo ka qaba ilaahay tabaaraka wa tacaala u soo kacay kaasaa ka fadli badan kan waqtiga hore ee markuu cishaha tukado hurdada aan isku hayn karin oo hormarsaday kaasaa ka fadli badan weeyaan laakiin labaduba ajri waa leeyihiin wey
labadaba ajir waa leeyihiin qofkii aan camalka la imaano ama tukan bay ka fiican yahay way kan marka horeba hormariyay waana qof ehlu khayr ah wayna fiican tahayo kaligaana ma ahayd waxaa samayn jiray saxaabatul kiraam raggii ugu waaweynaa saxaabiga jilka ah raawiga ahaayo ee wada taqaanaan Abu Hurayra Cabdiraxmaan ibn Sakh ayaa waxa uu tukan jiray habeenkii qaybta hore inuu qaybta dambe soo kacay gadaal way ku adkayd maadaama ay ku adagto wuxuu samayn jiray waa uu hormarsan jiray saxaabiga jilka Abu Hurayra laakiin qofkii ishubo ilaah dhahayo anigu habeenka dib qaybaha la gaahurdo ay ga dhamaataa waqtiga ugu fadli badan weeyaan وانا مقتل إلهي تبارك وتعالى وسماء الدنيا إيمانايو وليه ورمين كجرا هل من سائل ورمين كجرا مذوح ويدي سنيو وأنسيه الله أكبر إلهي بس سماء الدنيا إيمانايو وهدنا دهايو وركي وحويدي سنيو يا وحوباهن يا إلا برك مارت كفر ديانو كعكريهن وانوباهن لكن ولا ليال وحوي هردا نغا قادتay weeyaan waqti ilaahay la shaxaad waqtiga ugu fiican way inuu qofka habeenka soo kaco amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih marka kaasa qofka habeenka soo kacayo ilaahay waa waamaanay way oo waliba cabsi iyo soo ku jirto iyo damacna ku jirto saayida kale ku laha تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كواس لا ماري هذيك ويهدد جيركو ديدي خوفا وطمعا ايكو مارت عبسي اي كجرت رجال الهي تبارك وتعالى كقبو الهي كوا نغو دري حو الهي كواس جنات بو بلقاد يا وراق بالله تبارك وتعالى وبلقاد بل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه waxa uu tilmaamayaa walaalayaal oo inoo sheegaya in qofka muslimka ee muwaxidka ah ee habeenka qiyaamka la yimaado inay sharafu tahay sharaful mu'min ya qiyamul layl wa sharaful mu'min qofka sharaf bay u tahay bal asxaab dadka kaco habeenka qiyaamka kaco ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaco wajiyadu iftiimaya waa ifaya nuur baa ka baxayo wala siima wala gaar ahaan hadda waxa inoo bilowday oo aan bilownay waxaa kooyno habeenkii maxaan iraahdaa 20aad ba hadda galeynaa marka in tobankii dambe nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu weynayn jiray uu karaameyn jiray uu i'tikaafi jiray waliba quraanka laba jeer ma uu khatibi jiray 20kii ugu dambeeyay nabiga uu i'tikaafi kaleey salaatu wasalaam weeyaan 20kii ugu dambeeyay xabiibkeena maxamed kaleey salaatu wasalaam xaasaskiisi iyo ehelkiisana waa kicin jiray masaajidku ku soo hooyday weeyaan halkaas markaas ilaahay ku bari jiray tabaaraka wa taala ومع ذلك النبي wax dambi ah maaratay ma lahayn laakiin anakuna tababaraya annaku ilaahay subhanahu wa ta'ala dhawaada oo cibaadada la imaada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa akoonkiisa wax ku darsada weeyaan akoonkiina aakhir wax ku shubta nabiga wuxuu noo yahay qudwa laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allaha wal yawmal aakhir qofka ilaahay rajeenayo nabiga dayasha ugu filan sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xadiiskeena maanta walaalayaal maxaynu ka qaadanaynaa ee inoo warnay Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu waxaynu ka qaadanaynaa qofka in la siiyay ikhtiyaar laba choice hadii uu baqo inuu soo kici maaratay kirin waqtiga dambe inuu choice ikhtiyaar la siiyo miduu doon uu qaadan karo labo waxaynu ka qaadanaynaa walaalayaal inuu fadli badan tahay ama uu fadli badan yahay qofka habeenka qaybta dambe soo kaco aynu maaragtay ka qaadanaynaa oo ka fadli badan yahay midka hore ka tukaday weeyaan waxaynu kala ka qaadanaa xadiiskan qofka آخر من الليل أما آخر الليل هبينك قيبت دم تكدو صلاة أو تكدو مشهودة إن تعمد مرغاتي كعيانو ملائكتي كمرغاتي كعيسو صلاة أسمارت لأن كذلك قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود الله تبارك وتعالى عليه مركز صلاة إن ملائكتي كمرغاتي كعيسنا وإنو كقاضرنا ويان وملائكة الله وتقرنا سوال ليال وناق بكا قريان أداد وناق لتمادد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنا كود عين يا وليبا نبي نحن نشر قفك بركو صلاة دمارتي سوى بسايدكو وفرديو صلاة كانوا كسوغيو ملائك بود عينيس اللهم اغفر له وارحمه إله قدام داف إله نحرسه
qofka markuu istighfaarta xitaa la yimaado assalaamu calaykum assalaamu calaykum la yiraahdo intuu booskii ku tukado uu fadhiyo malaa'ig baa u duceynaysa ducada malaa'igta lama soo celiyo walaalayaal basharka ducaysa waxa laga yaabaa inay soo noqnoqoto iska dambiilaan iska nahaye in dib loo celiyaa laga yaaba laakiin malaa'igta ilaahay tabaaraka wa tacaala hadday kuu ducayso ducadaada ghayru marduuda weeyaan waa midaan la soo celinayn maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala darafata cayn ilbiriqs ilaahay macaasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum ilaah wuxuu faray u amray kuma caasiyaan wey wayafcaluuna maa yu'maruun walaalayaal wixii la faray ay fartoon yihiin marka walaalayaal in qiyaamka uu fadli badan yahayna qayb dambe xadiiska noo tilmaamo wadaalika afdalu kaasaa fadli badan weeyaan maadaama aan ku jirno marka walaalayaal intaas horta faa'iido noo ah laakiin maadaama aynu ku jirno tobankii dambe fadla naftayda iyo tiina waxaan ku celcelinayaa inaynu ka faa'iidaysano cibaada ku buuxino alla ka cabsi ku buuxino oo dunuubta iyo wax walba dambe inoo dhaweynayo aynu ka dheeraano wax ilaahay noo dhaweynayn u dhawaano akoonkaaga aakhira maanta wax ku shubo maanta waa fursad qaali ah oo ku garab taallo oo ku ag taallo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey haddii aadan ka faa'iidaysan ood fursadaas aadan maalin wallaahi maalinkay maaragtay xeere iyo fandhaal kala dhacaan shallayta wax kuu tari mayso shallaytaana wax ii tari mayso qof walboo naga mid aakhira ha u shaqaysto يا ولدار الآخرة خير للذين يتقون تاس أو خير بدن كو إلهي سبحانه وتعالى كبقو إلهي كواه نقدره إلهي نو دم بدافع إلهي دم بجنا يدم بج والدينتين يدم بج مسلمين تدمان إلهي جل وعلا عن كبر يعني ندافع وتهاي وحوس يقول بينا هلكا يسؤاشي وحد نوصل شيكتا إن شاء الله تبارك وتعالى قيام الليل أما التهجد كصلاة الله يقانه إمسارك عضوت أيها لا تكنيا إلهي سبحانه وتعالى حنجينا يا إنه مارت نبرك حلقاتك خيرها أين وضنه وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.